habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada Melbourne xaflad aad u ballaaran oo si heersaran loo soo agaasimay oo looga gol lahaa sanad guradii koowaad ee Khartoum State of Somalia oo muddo hal sano ka hor idibada loogu taagay magaalada taariikhiga ee Taleex oo caasimad u ah maamulka Khartoum xafladan waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano aad u fara badan wax garad culimaawidiin u dhashay deegaanka Khartoum State iyo waliba bulshadeynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne iyo nawaaxigeeda iyo marti sharaf aad u fara badan oo ka kala yimid guud ahaanba gobolada ay ka kooban tahay dalka Australia sidoo kalena waxaa halkaas lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka noocyadooda kala duwan sida gabayo buraanburo geeraaro ugu horeyntiiba furitaanka xafladda waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediya Cabdinuur Maxamed Ismaaciil Balayax isagoo si hufan u qeexay ujeedada loo qabtay xafladda sidoo kalena ka hadlay taariikhda shacabka Sool Sanaag iyo Cayn iyo arrimaha taagan xilligan iyo tacadiyada ka dhanka ah ee lagu kaco gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Cabdinuur Maxamed Ismaaciil Timajilic ama Balayax loo yaqaan hadaladiisana waxaa ka mid ahaa sida tan Khartoum State of Somalia ama dowlad goboleedka Khartoum ee Soomaaliya waxaa ku midoobay oo samaystay oo ay madax u tahay dadka degan saddexda gobol ee taariikhda Soomaalida baaldahaba kaga jira ee la yiraahdo Sool Sanaag iyo Cayn saddexda gobol dadka saddexda gobol degan ee reer Khartoum sidii weligood ay ugu taagnaayeen midnimada Soomaaliyeed ayay imika ugu taagnaanayaan weligoodna ugu taagnaanayaan cid ka weecin kartaana ma jirto aan Ilaahay ahayn dadka iyaga Soomaaliyeed ee hadli waay hataa xaq sheegi waay fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay weliba sidaas baan idinku jecelahay aan idinku rabnaa oo aan idinku difaacno dhinaca iyaga la idinka soo dhacay madaxweynaha iyo dawladdeeda iyagana fariintaas oo kale ayaan u diraynaa sidaas baan weliba idinku taageersanahay oo aan idinku ducaynayno oo leenahay kaca oo guuleysta sidoo kalena kooxda nabadda ee BCBAN ee magaalada Melbourne uu hogaaminayo mushishinka weyn Idla Faarax Gaas iyo fanaanka Cabdiwahaab Booska iyo koox dhalinyaro oo fanaaniina ayaa iyaguna si aad u heer sareyso u soo bandhigay heeso wadani ah iyo heeso cusub oo loogu talagalay maamulka Khartoum iyo dawladda aan walaalaha nahay ee dalka Turkiga isla markiiba waxaa mikrofoonka la wareegay Abwaan Salaad Caray oo halka ka tiriyay gabayo aad u fara badan oo lala dhacay oo dhamaantoodba ku amaanaya maamulka Khartoum State of Somalia oo tashuushku uu baxo tacliin baa korodhayo triig baa nuurayo waxaanu tuhun aanu ku jirin inay tahay taan rabno Khartoum waa tabar gasho ana taageersano adduunka u tabinaya taaniyad gaar ah u diray turxaami ceebo iyo tumaati anoon ka wadin anoon teelteel ka dhigin tilmaanta halkaan ku waday haddaan tafatiro warkii war muddaa lagu taamayo shirkii la isugu tagiyo Taleex khayr baa ku jiray isna khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay xafladda Khartoum State Cabdi Cismaan isagoo ummadda Soomaaliyeed ku guubaabiyay inay ka faa'iideystaan dhulkooda qaniga ah ee Ilaahay ku manaystay khayraadka ku jirana kala soo baxaan iyo isagoo waliba ka hadlay xaalka uu ku sugan yahay maamulka Khartoum State iyo dhibaatooyinka lagu hayo iyo waliba sida ay laga maarmaanka u tahay in meel looga soo wada jeesto waxa kale oo inta raaciyay Cabdi Cismaan midnimada iyo qarnimada Soomaaliyeed in ay tahay mid muqadas oo lama taabtaana haddaanu nahay gurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Melbourne dawladda Soomaaliya waxaanu faraynaa inay dadka Soomaaliyeed ugu shaqeyso si cadaalad ah inay la timaado
isbeddel ka duwan dowladihii kala dambeeyey ee iyada ka horreeyey waa inay noqotaa dowlad ka hufan musuqmaasuq dowlad ka hufan eex iyo qabyaalad waa inay la timaadaa isbeddel dhaba oo shacabka soomaaliyeed ay ku tiirsadaan haddaanu nahay bulshada gobolkan degan magaalada Melbourne waanu taageersanahay dowladda federaalka waxaanu leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo midnimada Soomaaliya ha jirto Soomaaliya ha noolaato dhibaatada ha ka baxdo idinkuna noolaada assalaamu calaykum سعيد عود سعيد ديرة ملبورن أستراليا